جمهورية فدرال كصوماليا مدانة دكتور حسن شيخ محمود وزير كأمنية جنرال عبد الله شيخ إسماعيل يقولها حكومة دوميها قبل كبنادر جنرال حسن محمد حسين منقاب تلياشا عيدا مدى تليها نبت سويدة معد تليها عيدا كحوقة ودواء يدمان سراكيش كلا مدنياشا لوضع أقل سفيرة وكيلة بيش عالمك يعني صاحبة النهي مرتدى قود iyo kasoo qaybgalayaasha xuska xafladda 80aad ee sanad guurada aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaa maanta oo kale sanad walba xusnaa aasaaska hay'ad dawladeed ee Soomaaliyeed oo soo adeegtay tan ugu facaweyn waxay soo shaqaysay xilliyo iyo waayo kala duwan adeegeeda bulshada waa joogto goor iyo goob walba mudane madaxweyne sida aad ku daawateen oo kuna maqasheen bandhigii warbixinada aan idiin soo gudbinay indhihiinana aad ku arkaysaan sanadkan dhammaaday ee 2025 ilaahay mahadiis wuxuu noo ahaa sanad aan gaarnay guulo badan amniga oo horseed u tahay nabadgelyada caasimadda muqdisho waxaan kaloo horumarinay tayada booliska ee shaqo tababar xirfad aqooneed dal iyo dibadda taasoo keentay hoos u dhac ballaaran oo ku yimid falalka dambiyada dalka ee ka dhici jiray sidaad ku aragteen muuqaalkii la baahiyey sidoo kale sanadkan waxaan hirgelinay tayeenta nidaamka maamul ee ilaalinta cadaaladda iyo maareynta xogta iyadoo aanu sameynay database xog ururin lagu tiro koobayo gaadiidka ciidanka booliska si loogu hortago in loo adeegsado falal amni darro number 2 waxaan sameynay gal maamul case file management system oo isku xiri doona booliska xiraalinta garsoorka iyo asluubta waxay dardargelinaysaa fulinta cadaaladda iyo shaqada waxaa sidoo kale si ballaaran oo olole ah u sara qaadnay dhismayaasha xarumaha booliska Soomaaliyeed oo ugu weyn tahay taliska guud iskuul boolisiyo isbitaalka booliska ee Madiina iyo saldhigyada ku yaala maamul goboleedyada iyo caasimadda sanadkeenan dhamaadka ah waxay saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed nasiib u yeesheen inay ku guuleysteen inay sidii ugu habooneed u guteen sugidda amniga diiwaangelinta dadweynaha Soomaaliyeed waxayna u diyaar garoobayeen si buuxda shaqada sugidda doorashada dadweyne ee caasimadda muqdisho ka dhacaysa 25ka bishan markii ugu horeysay tan iyo 1969 waxay doorashadu noogu dhacaysaa ilaahay idinkii si nabadgelyo ah hufan adeeg qurux badan oo niyadda dadkeena ku harta mudane madaxweyne waxaanu diyaarinay qorshe hawleedka iyo hiigsiga sanadka cusub ilaahay idinkii oo ah casriyeenta nidaamyada iyo adeegsiga tiknoolajiyadda hawlaha booliska Soomaaliyeed iyo sii wadida iyo kobcinta hawsha hadda socota waxaan hortaada ku cusboonaysiinaynaa ballanqaadkayagii ciidanka booliska inaan bulshada Soomaaliyeed ugu shaqeynayno hagar la'aan ciidan leh naxariis iyo turaal tayada iyo tabarta booliska sare u qaadayno ku dadaalino inaan gaarno meesha maanta aan joogno meel ka wacan mudane madaxweyne guud ahaan mahad ilaahay baa leh sidoo kale waxaan mahadnay madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda sharafta leh ee noo igmaday naguna garab taagnaa hawsha aan qaranka ummadda Soomaaliyeed u hayno waxaan qadarin iyo bogaadin mudan saraakiisha iyo ciidanka Soomaaliyeed ee shaqadan goostay har iyo habeen inay u taagnaadaan waxaan ka mahad celinaynaa wada shaqaynta wanaagsan ee laamaha ammaanka kala duwan ee guud ahaan wada shaqaynta bulshada Soomaaliyeed nagala dhaxaysa ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa saaxiibada iyo walaalaha beesha caalamka ee nagu garab taagan inay Soomaaliya noqoto meel wanaagsan oo amni badan ilaahay ha guuleeyo booliska iyo dhammaan ciidanka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin